بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي سبحانه وتعالى ما تسكله كلن كان نسخوك كيني waxaan rabaa guud ahaan kasoo qayb galaasha kulankan inaan ku salaam salaamka ugu horeeyo wasiir dawladayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan ka bacdi walaalkay abshir agaasima abshir waxaan ugu mahad celinaynaa in uu qalinka iyo qoraalka u qaatay in uu noo soo saaro buugan ifiye uu ku dul istaagay aqoon-yahanada ilbaxnimada islaamka waxaan rabaa wax yar in aan ka faa'iideysano walaalkeen abshir tusaalaha uu na rabay inuu na siiyo iyo ulajeedada uu ka leeyahay buugan ma aha kaliya inuu taariikh noo soo bandhigo iyo inuu na tuso sidii ay ahaayeen muslimiintii xilliyadii hore nolosheenna inay wax iska bedelaan ayay tahay ulajeedada ugu dambayso waxaan rabaa inaan isweydiino halkeen kala joognaa annaga iyo waxbarashada jaamacadaheenna iskuuladeenna nidaamkeenna waxbarashada annaga nafteenna sideen nahay maxaan ku soo kordhinay dunidan bulshada Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka badan haysata maxaan ku soo kordhinay haddii aan taa ka faa'iideysan taariikh aan akhrinay waxba noo soo kordhin mayso cilmiga ayaa wax bedela bulshada waxa wax lagu bedeli karaa aqoon haddii aanan bulshada ku bedelin jahligu waa mid kaad aragteen meesha na soo gaarsiiyay culimada muslimiinta waxay fulinayeen amarkii ilaahay markii ay cilmiga raadinayeen dalabul cilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima in cilmiga la raadiyo inuu waajib ku yahay ay aaminsanayeen waxay aaminsanayeen inay ajir ka helayaan mar walba ay cilmi raadiyaan cilmigana waa mar walba oo aqoon iyo khibrad ah kororsato ama diin ha noqoto ama adduunyo ha noqotee malaa'ikta ayaa u duceysay nabi sallallahu alayhi wasallam qofka cilmiga baranayo marka waxaad arkaysaa in muddo kooban muslimiintu ay ka hormareen Greegi iyo dadkii ka horeeyay oo waxbarashada iyo aqoonta hogaaminayay iyo Faris inay muddo kooban uga hormareen sababta keentana waxay ahayd in ay cilmigaas Ilaahay ku raali gelinayeen inay bulshada inay wax ku soo celiyaan ajir u xisaabsanayeen saddexda shay oo qofka markuu dhinto ka bacdi ajirkeedu u socdo waxa kamid ah oo cilmun yuntafacu bihi waladun salihun yad'u lahu iyo sadaqatun jaariya inta saddexaadna waxay ahayd oo cilmun yuntafacu bihi cilmi lagu manaaficadsado oo laga faa'iideysto qofkan markuu dhinto ka bacdi ajir u socda ayay noqonaysaa marka muslimiintu waxay kale xal u raadinayeen mushkiladaha muslimiinta cibaadadooda iyo in ay xal u keenaan waxa arkaysaa cirbixiyeenadii ugu waaweynaa dunida soo maray inay muslimiin ahaayeen iskama imaanin waxay xal u raadinayeen muslimiinta markay u socdaan xajka waxay xal u raadinayeen bilaha soonka waxay xal u raadinayeen salaadaha iyo waqtiyada la dukanayo waxay xal u raadinayeen saacadaha ay muslimiinta cibaadeysanayaan waxay xal u raadinayaan ramadaanka iyo soonka waxay xal u raadinayaan aragtida bisha ramadaan iyo ciidaha sidaas la mid ah dadka xanuunsan iyo daaweyntooda ajirka laga helaayay faman ahyaha fakaannama ahya an-nas jami'an qofkii qof nooleeyo wuxuu la mid yahay inuu dadka dhan nooleeyo ibn Hayyan ibn Sina dhaqaatiirta arkayso waxay ku cibaadeysanayeen cilmiga ku cibaadeysanayeen walaalkeen abshir aad iyo aad ugu mahad celinaynaa inuu buugan af Soomaali noogu soo qoray in badan oo kamid ah hadii aan luqado kale ku akhrisanay sidoo kale waxay muujinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay luqadooda ay wax ku qoraan muhiimadda ay leedahay bulshadana loo soo gudbiyo intii aanan luqad kale wax ku akhrin karin muhiimadda ay leedahay taariikhdan iyo culumtan ay leeyihiin aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa mar haddii la yiri hal ballan qaado
buugaagtan maktabadda wasaaradda iyo arkiifyada wasaaradda anigana waxaan ballan qaadaa in aan number fiican aan geeyo hadduu ilaahay yiraahdo aniga abshirna waan ka wada hadalnay wasaaradda iyo hay'adaha raacsan inaan number fiican aan geyn doono hadduu ilaahay yiraahdo adinkana waxaan idin ka rajaynayaa inaad meeshaan aadan buug la'aan kala tegina buuggan ragga wasaaradda ka tirsan oo hadda halkaan fadhiya wajiyadooda way ii muuqdaan iguma laha inay gataan la rabaa ayaga dadkii wasaaradda aan uga nimid aan insha Allah u geyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin